halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19 mitrband iyo bogga internetka somali voa com. waa subaxnimo sabtiga kowda bisha February sanadka 2014 Afrikada bari saacadu hadda waxay tilmaamaysaa 6 barkii aroornimo. Idaacadeena saaka iyo caalamka waxa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo Xuseen Barre iyo Haruun Macruuf. dadka madaxda oo maanta dadka u madaxda ah inay ogaadaan weeye mas'uuliyad saaran haddii nabad darro dhacdo qofna xiriir ku lulan maayo qofna aan dhami maayo bilaasha nabadda weelba waa muhiima qowmiyada iyo magaca yaa muhiima haddii la kala baxo oo gobol la noqdo gobol hadhowto waddan kale yuu hoosta gelaya waxaadaynu haynaa waa u jeednaaba codkii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen oo xalay ku geeriyooday magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka warbixin ayaannu idinka haynaa cali axmed xuseen iyo sulul cabdi axmed waxay ku yimaadeen dadaal iyo wadahadallo lala galay si amni ayna ku joogaan wax dhibaato ay qabaanna ma jirto waxa weeye waa dad nabad qaatay oo dadkoodii iyo ummaddoodii usoo noqday xaaladooda waa saa weeye la taliyaha amniga ee madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo sheegay in laba sarkaal oo ka tirsan ONLF ay u goosteen dhinaca Itoobiya ee aan laga afduubin magaalada Nairobi waraysi ayaanu idinka haynaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa xalay ku geeriyooday magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka. marxuumka ayaa maalmihii u dambeeyey ku jiray cisbitaal isagoo xanuun uu ka haleelay dhinaca sanbabka sida uu v o a u sheegay cabdiqafaar xaaji xuseen oo ay walaala ahaayeen. cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii labaad ee soomaaliya yeelato isagoo oo ra-iisul wasaare soo noqday intii u dhaxaysay sannadihii 1964 ilaa 1967. cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu ku geeriyooday 90 sano jir. warbixin ku saabsan taarikh nololeedkiisana goordhow ayaad maqli doontaan. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa maanta dalka Jarmalka kula kulmi doona qaar ka mid ah madaxda mucaaradka dalka Ukraine ee hogaaminaya dibadbaxyada ka socda dalkaasi tan iyo bishii November. Kerry ayaa booqasho ku maraya Jarmalka waxaana uu halkaasi kulan kula yeelan doonaa madaxda mucaaradka siyaasadeed ee Ukraine Arseniy Yatsenyuk iyo mid ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka Mr. Vitali Klitschko. dhinaca kale waxaa weli socda banaanbaxyo iyadoo mudaharadayaal cadhaysan ay isugu soo baxeen magaalada caasimadda Kiev kadib markii la helay mid ka mid ah dadka u ololeeya mucaaradka oo la la'aatan iyo 22 bishii January. Dmitry Bulatov ayaa la helay isagoo dhaawaca waxaana uu sheegay inay afduubteen dad aan haybtooda la garanaynin isagoo tilmaamay inay ku tuureen meel kayn ah halkaasi oo uu soo lugeeyey tuulo u dhow islamarkaana uu telefoon kula xidhiidhay asxaabtiisa. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi inuu dambi baadhis ku sameeyo falalka jirdilka iyo afduubka ee ka dhacay dalka tan iyo intii ay dibadbaxyadu bilaabmeen. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. sidii aad warkaba ku maqlayseen ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa xalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kadib markii uu muddo xanuunsanaa. cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu soomaaliya ra-iisul wasaare ka soo noqday sannadihii 60meeyada waxa uu ku dhintay 90 sano jir. xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo diyaariyey. allaha u naxariistay mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu ku dhashay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qiyaastii sanadkii 1924 waxa uu allaha u naxariistay ku geeriyooday shalay galab isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis oo uu maalmihii u dambeeyey ku jiray halkaasi oo lagaga daweynayay xanuun ka haleelay sanbabka sida uu VOA-da u xaqiijiyey walaalkii cabdiqafaar xaaji xuseen. adeer odaga waxaa ku dhacday limonya neefti baa ciriiri noqotay dhuunta marka waxaa laga geliyay tuubadii la geliyey marka iyadiibaa iyaduna markii tii la daaweynayay fashayn kale oo sanbabkii iyo wadnihii iyo wixii oo dhan baa maanta isku noqday marka noo yimaadeen waxay yidhahdeen dhiig baa tan iyo shalay ka soconayay dhiiggii maskaxdu ku furay bay yidhahdeen dhiiggii marka alaabtaanu ka guranaynaa hawl kaleo meeshaan alla ma jirdho marka geeriyoodka xanuunkii markii hore waxaa loo geeyey wuxuu ahaa limonya laakiin hadda iyadiibaa 100 cudur oo kale ka dhashee. cabdirasaaq xaaji xuseen allaha u naxariistay waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka ugu jiray dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka waxaana uu horaantii sannadihii 40meeyadii uu xubin ka noqday ururkii xornimo doonka ee SYL isagoo oo 1956 ilaa 57 hogaamiye u noqday ururkaasi.
sida uu tilmaamayo brofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota una kuurgala siyaasadda iyo taariikhda soomaaliya. marxuumku waxa uu halgan dheer u soo galay gobonimadoonkii soomaaliya, taasi oo saamayn ku yeelatay noloshiisa. ugu horreysa waxa weeye tacsi waxaan u dirayaa qoyskii uu ka geeriyooday iyo qaraabadii iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed uu hawl weyn u soo qabtay muddo ku dhow 70 sannadood walaal. Cabdirasaaq maanta waxaad moodaysaa inuu u dhintay nabar hay soo gaadhsiiyeen dawladdii Talyaaniga isticmaarka ahayd isagoo Baydhabo jooga 1950 oy si xoog leh intay u dileen oy ku dilayeen inuu ahaa SYS ka mid ahaa, inuu gobonnimadoonkii ka mid ahaa, dhaawacay gaadhsiiyeen sanbabadiisii ayuu maanta u geeriyooday. marka waxa weeyaan wax isticmaarkii soo gaadhsiiyey isagoo u dagaalamaya dadka Soomaaliyeed ama waqooyi ha joogaan ama koonfur ha joogaan inay xor noqdaan. kaalinta ugu weyn waa taas. dhaawaca iyo dhacdadan ayaa waxaa VOA-da u xaqiijiyey ugana warramay Cabdilqafaar Xaaji Xuseen oo ay walaalo ahaayeen marxuumka. xilligaas gumaystaha adeer ninka kan waxaa ku dhacday dilkii la dilay iyo shamintadii ooli jiray waxaa ku dhacday TB Baydhabo ahaa, marka suxunna waa loo dilay. mudane Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa waxa uu Soomaaliya ra'iisul wasaare ka noqday intii u dhaxaysay sanadihii 64 ilaa 67. muddadii uu ra'iisul wasaaraha ahaa ayaa waxaa lagu xasuustaa arrimo kala duwan oo uu ka qabtay dalka, sida uu mar kale tilmaamayo Professor Cabdi Ismaaciil Samater. cabdirasaaq ka noqday ra'iisul wasaarihii waddanka 64 ilaa 67 waxaana taariikhdu sheegaysaa maanta ayaan qabaa cabdirasaaq xaaji xuseen inuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu qumanaa ugu qaayaweynaa ee Soomaali soo mara intii gobonnimaha qaadatay inuu hormood ka ahaa. waxa weeye kelmad ayuu soo saaray cabdirasaaq markii ra'iisul wasaaraha uu noqday. kelmadiina waxa weeyaan la'aanteed waa waxayna baabiyey weeyaan maanta walaal. labadaa kelmadood waxay karti iyo hufnaan. af ingiriiska waxaa la yidhaha competence iyo integrity. karti iyo hufnaan. marka waxa weeyaan qofka dawladda u shaqaynaya waa inuuna kartina lahaadaa una hufnaadaa ama uu lahaadaa dad mabda'i islaamnimo iyo soomaalinimo leh. waxyaabaha laga dhaxlay hadday Soomaali doonayso dad noqoto taariikhda intay dib u raacaan ayaa wixii isaga iyo ninkii madaxweynaha waddanka ka ahaa oo saaxiibna ahaayeen xulafana xagga siyaasadda ku ahaayeen aadan cabdulla cusmaan. labadaasi taariikhday ka tageen hadday Soomaali doonayso inay wax noqoto inay dib ugu noqoto ayaan rajaynayaa. dimuqraadiyadda, musuqmaasuq la'aanta waxaan ku tilmaamay walaal aadan cabdilli iyo cabdirasaaq labaduba xajka way tageen. waxaanu haynaa wixii cadaynayay maanta inaynan lacag dawladeed xaja ku tagin, mushaharadoodii waxay ka urursadeen hay ku tageen. kuwii hore iyo kuwa maanta jooga mid sidaa sameeyey ma jiro. faxal wuu ahaa ama faxal xag gacaneed ha ahaado waxa yar u haysto ama ha noqoto mid ah xagga caqiidada ha noqoto. wuxuu lahaa nin maskaxdiisu cajiib hay tahay oo isagu wax soo baray buu ahaa. wuxuu ahaa nin mabda'nimada islaamnimada iyo Soomaalidu ku weyn tahay iyo geesinimo aan libiqsanayn ayuu lahaa walaal. anigu waxaan qabaa ilaahay hortii in laba aabbo ummadda Soomaaliyeed hay lahayd wixii ka dambeeyey Maxamed Cabdulla Xasan iyo dadkaas. labadaa aabbana waxay ahaayeen kow aadan cabdulla cusmaan allah u naxariistay madaxweynihii koowaad ee waddanka oo isagoon shilin ka qaadan ka tegey oo uga tegey dimuqraadnimo darteed uga tegey. cabdirasaaqna isagoo kari lahaa inuu musuqmaasuq gudaha ugu dhaco uu ka xoolaysto isagoon guri xamar ku lahayn ayuu ra'iisul wasaarnimadii ka tegey oon accountkiisana xataa markii allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre meesha qabso ee la baaray baanankii hay lahaayeen dadkii madaxda ahaa. cabdirasaaq buu maalin u yeedhay markaasuu ku yidhi war maan ogeyn inaad doqon intan leega tahay. markaasuu naxay cabdirasaaqo markaasuu ku yidhi maxaa doqonnimadana keenay. wuxuu yidhi accountkaagi waxaanu ka helnay $500 baanu ka helnay wax lacag oo kaleba miyaanad haysan. markaa ninka caynkaa caqiidadiisu iyo aaminaadiisu ahayd waxa weeyaan isagiyo aadan in maanta laga dhigto xagga siyaasadda iyo xagga caqiidadaba bartilmaameed han ku soo hooyano oynu ku soo helano in ay tahaan filayaa lagu xasuusan doono. mudane Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa had iyo jeer aan hagran jirin in dhacdooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya uu ka tala bixiyo. waraysigii ugu dambeeyay ee uu siiyo idaacaddani VOA bishii Juun sanadkii tegay 2013 waxa uu talo iyo sida ay ula muuqato in Soomaaliya ay nabad ku gaari karto ugu gudbiyey dawladda iminka jirta ee Soomaaliya. aniga dawladatan muxuu ahaa siyaalo badanna meelaha qaarkoodna waan ku ammaanayaa. siyaalo badanna waxaan isleeyahay anoo u ogol in dhibaato jirto oo waddanka qaru burburay oo muddo yar haddiiba wax la taaban karo weyn ay sahlanayn in la qabto anoo qiraya oo og taa midda oo aan ku waafaqsanayn dad badan oo eedo badan u jeedinaya xukuumaddan hadda cusub oo jirta aan ku waafaqsanayn yani haddana waxaan u jeedaa
waxyaalo badan oo sida dawladdu u maamulaysa hadda si ka fiican si ka duwan loo maamuli karay oo aniga ila tahay sida aan sheegaya haddii loo maamuli lahaa inay arrintu ka sahlanaan lahayd sida hadda ay tahay waxaa ka mid a xukuumadda tan horta waxaan hormarinayaa waxyaalaha aniga aan ku ammaanahayo arrimaha dibadda xukuumaddan uu madaxda u yahay muxuu ahaa beresidentaha hadda joogo xasan sheekh maxamuud uu madaxda u yahay waxaan arkayaa guulo badan oo fiican baa yaa la gaaray ictiraaf baa la helay oo dawladda tanu loo ictiraafay inay tahay dawlad runtii sida dawlad ahaan jirtay inkasta oo la og yahay in burburusa jiro oo la og yahay waddanku inuu hadda gacanteeda usan ku wada jirin haddana ictiraafka loo ictiraafay inay tahay dawladdii runta ahayd oo Somali Republic ka jirtay waa wax weyn weeye midaas waxa wax dhisaya waxa weeye nabad guuda in la helaa dadka in la isu keenaa in la heshiisiiyaa dadka madaxda ah oo maanta dadka u madaxda ah inay ogaadaan weeye mas-uuliyad saaran haddii nabad darro dhacdo qofna xiir ku lulan maayo qofna caanan dhami maayo bilaasha nabadda weelba waa muhiima qowmiyada iyo magaca yaa muhiima haddii la kala baxo oo gobol la noqdo gobol hadhowto waddan kale yuu hoosta gelaya haddaynu haynaa waa ujeednaaba marka haddaynu rabno sharaftii waddankeena iyo qiimihiisa inaan soo nolayno heshiis guuda in la doono weeye dawladda tan oo hadda dhisanna waa inay iyadu noqotaa maamulka madaxdiisa inay ku muuqataa sannadihii u dambeeyey ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii soomaalida ee sida weyn uga biyadiiday soo gelitaankii ciidamada etoobiya ee gudaha soomaaliya bishii disembar sannadkii 2006 sidoo kale waxaa mowqifyadiisa ka mid ahaa inuu ka horjeeday hanaanka federaalka iyo gobolaysiga oo uu ku tilmaamay mid ku salaysan qabyaalad islamarkaana mashaakil badan abuuraya sida uu ku sheegay waraysigiisii u dambeeyey ee uu siiyey laanta af soomaaliga ee idaacaddan v o a anigu waxaan qabaa dadka horta inay iyagu ismaamulaan waa muhiim weyn oo hawlahooda u gaarka ah oo hadday municipio laga bilaabo municipalities laga bilaabo ilaa iyo district ilaa iyo regionada qolo walbaba inay iyagu ay awood u leedahay gudahooda wixii hawshooda iyagu inay maamulan karaan midaas shuruuday ku xiraanaysaa shuruudahay ku xiran tahay waxaa weeye good administration in la helo weeye ilaa good administration in la helo weeye ma garatay dawladda federaalka inay geesinimo geliso weeye dawladda hadda centraalka inay geesinimo geliso weeye inay muxuu ahaa xukunka inay ballaariso oo dadka localka ah waxay iyagu qabsan karaan inay u madax bannaan yihiin oo qabsadaan oo aan lagu faragelin oo cawimaad lagu siiyo intii awoodda tahay ayaa loo baahan yahay kabacdi arrinta muxuu ahaa gobolka ah anugu uma jeedo waa qabiil weeye meeshaad gobolkaa tagtidba qabiil baa ka soconaya qabiil wax dhisi mahayo haddii berrinta qolahomaba loo daayo oo federaalka ay noqoto ayagaa hoostooda isku soo jeesanaya qaar ka mida qaraabada iyo qoyska marxuumka uu ka baxay ayaa v o eda u sheegay inaan weli go'aan laga gaadhin halka marxuumka lagu aasi doono iyada oo wararkeena dambe aad ku maqli doontaan hadba waxa ka soo kordha aaska iyo tacsida allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi inooga diyaariyey geeridii allah u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen oo xalay ku geeriyooday magaalada minneabolis